halkan qodob waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo walaalaha gaar ahaan dumarka. waa jeclaa wallahi qof walba inuu ku noolaado farxad iyo muruga la-aan, fikir la-aan, bimacnaa fikir walwal tilmaamaya iyo walbahaar. waxaa weeye gabadha masayrkeedu saa-idka yahay, ama si kale haddaynu dhigno gabadha oo ka cabsanaysa ninkeeda inuu islaan kala guursado. caalamkan haweenka ku nool haweenkasta ninkeeda waa cabsanaysaa, iyo waa cabsanaysaa mid ayadoo kale oo walaasheeda baahida ayada haysana ay haysto ayay uga cabsanaysaa inuu guursado oo ayada la qaybsado. waxay doontaba ku dhistee ama ciladeeda ku dhistee way yani aad bay uga didaan haweenku. in badan ayaa kamid a waxaa laga yaabaa in ay cumri degda ku dhacay oo yaryaraato caato noqotay say u fikirayso lahayd alla ninkaygii alla ama meesha u maqaya ama islaan kala jiraa, yani walwalka noocaasa iyo waxyaalahaas ay filayso cabsida ah waxaa uga degaysid oo uga raysanaysa mataqaanaa waana wax xaqiiqa ah. waxaan ka warramayo run abal tijaabiye intaa is adkaysaan insha allah. daawada marka la liqayo marka qaarkood adoo u baahnayn baxo isku cabsiisahay ninkaada saad u nasatid aada uga cabsanaysid naa kale adigu u raadi oo guursa dheh. gabar usoo ballami gabadhaana kugu daray dhe ninkayga guursa dheh bas. xaqii tijaabiye dumar qaar waxaa laga yaabaa hayaa waa suntii adigu doonaa. waxaa ka daran tan kale oo ah isagu inuu iskii u doonto ama uu kaa qariyo kadibna ay soo baxdo ayaa walwalkeeda ka daray. laakiin mar haddaad intaas adkaysay indhahana shidatay oo dagaalkii gasho, bimacnaa intaad gabar soo raadiso tiris macaankaygiyo gabadhana ku soo raadiyo ku helay guurso, cajab uu yaabaya markaas. waxaanu ka warranaya laakiin hadduu de awoodo labadiina idin kafayn karo, xoolaha iyo shaqaysto, nin maskax leh oo nin dadaalaya waya oo cadaaladaada aada u yani u tixgeliya hadduu yahay oo iyana in haweeney kale oo kula guurso ad uga cabsanaysid adigu intaa isbardhigto waxaa tiradaa xaajigayga tan guurso waa kuu haya ila gur waa tana miyaradaydi bas waad nasanaysaa. hadhow markuu inuu 40 guursadiyo 40 furus uu ka mid bay noqonaysaa. ma ka cabsanaysid, ma ka walwalaysid, khasaaradiisi faa'iidadiisu isku mid bay noqonaysaa. adigu ha ka fakeri nin baa islaan kula guursaday, nin baa islaan kula furay, waxaa xaggaa fiirinba adiga naftaada inaad deganaataa la rabaa, inaadan mashquulin baa la rabaa, inaadan ku fakerin baa la rabaa islaam buu ku maqayahay meeshuu safray islaam buu ka heli doonaa, kollay nin weeye islaam madaynayo. hadallada inay kugu soo noqnoqda oo tushuus kugu furaan oo hadhow shaydaanka qarinka intuu kusoo galo kusii buufiyo dhiiggaada sii galo kadibna balaayo sii kace ayaan diidaynaa walow aad ku noolaatid. saa waxaan oga baxatay u nasatid tiraada isagay u taallaa dhakab ku sii bas jirkaadana waa degayaa, adiguna waan doolaanaysaa. adigu inaad farxad ku noolaataan raba, adigu inaad deganaasho ku noolaataan raba. isagoo wax garan waayey adigu wax garo. qofkuna sideeda waxa uu filo maanta o dhan uu yidhahdo amay dhacaan gormay dhacayaan way dhacaanba wuxuu fishaba qofku sideedaba. waa garanaysaa nabiyullaahi yacquub yuusuf markii laga xaday ay dhaheen waxaan ka cabsanayaa uu yidhi eyga inuu idinka cuno ii daayo wiilka yacquub yidhi. sidii baa yani iyaguna ugu rumeeyeen waxay dhaheen yey baa naga cuntay markay ceelka ku tuureen. soo ma aragtaan markuu dib usoo noqdo yuusufna madax noqdo walaalkii u kala haray oo magaalada usoo diray safarkii reer masar usoo diray wuxuu yidhi magaalada midba meel kasoo galasay isha dadka idinku dhaceen idinku wada jira. wixiina way dhaceen oo ciladii waa dhaceen. walaalkii yiriiska la haray yuusuf la haray isagoo si kala matalaya, bimacnaa tusaya qaladkii ka galaan isagoo yaraa yuusuf. waxa qofku markuu fisho oo yani yirahdo amay dhacaan waa dhacaya. marka intaas asugu kugu keena ama kaa qarsan adigu intaas baraxda waxaa tirada ho bas waa ka nasanaysaa. xaqaygana meelaysaa riniyo bas gurigaana iga bedel wax fiican ii geli anigana masaytrisi intaa yarta ay sii kadibna khalaas 4 guurso 5 guurso 3 guurso 8 guurso boqolaal adiga ku taala bas aniga caruurteeda iyo xaqaygaada siinaysa bas oo ku qarso bas waa tagaysaa oo kalsoonaysa. laakiin maanta orday ku noolaatay ama kula guursada ama saan sameeya finish. maalin dambe waxaad qaadaysaa stress deganaansho la-aan. wixii aad filaysidna isagiyaa sameeyey uu kaa qariyay 80% in ka badan way qarinayaan. mar hadduu kaa qariyana finish way balaayo. aduu marka furrinkaas balaayo qoyskaada baaba'ay waxaas miyaad u taagnaanaysa maya. kan haddaad isfurtaan wadunaa kula guursan midka kale aad guursan doonta haddaaba guursatidba mid waa xaqiiqo inuu guursado waxaad yani filatidba. marka ninkaan hadduu xaqaada ku siinayo oo ku ixtiraamayo ku weyninayo mid kalena awood inuu guursado intuu isagu damcin ba adigu hor istaaji waa tanaa dheetan guurso anaa tanaa kula jeclaaday isna waa cajabayaa wuuna kusii jeclaanaya salaanna waa kuu taagayaa weligaana adigu ku daba haysanayaa adigana waa degaysaa. waxaad niyadaada gelgelinaysa dhan waa kaa baxaya. bar tijaabiya dumar badan waxaa laga yaaba inaysan u qalmin laakiin waa xaqiiqo waa qodob asaasi muhiima bar tijaabiya bal isku daya insha allah.
wax walbo rafaad iyo halis waa loo galaya si faa'iido loo helay adiguna faa'iidada heshaan rabaa waa aad deganaatid calalkuuskan iyo dadka anuun ka tirsanayn raggaas ayagu ama ha murugooda ama ha walwaleen ama ha farxa ayagu tahay laakiin adiga gabar yahay inaada fikrin baa rabaa oo ada walwalin walbahaar inaad qosasho carruurtaada la ciyaartid gurigaada yacni ku noolaatid si jawi quruxsan ah bas wey intaas wey intaa waxaad ku helaysid walow mararka qaarkood khatara kaaga imaatee gal dagaalka markii la gelaya maxaa la raadinaya qof meesha nabad laga helo la xoreeyo ama wax laga sameeyo la helayo sooma laakiin waa in wax la bixiya soo maha naf iyo maal bixiya marka saas ayaa rabaa walaalahay inaan u sheego la wadaaga jazaakum allahu khayr